gabdho yar oo aanan da'dooda aad u weyneenin oo yaraan ku guursaday hal cunug laba cunug saddex cunug dhalay ayagoo ninkii qabay jecel u haayo oo noloshooda fiican somehow ninkii ka tagay naag kale helay ama relationship-ka naagtan labada cunug dhashay ma rabo marka gabdhahaas oo kale frustration ku jiro caruurtana meeshan ka dhashay aan age-kooda 30 ilaa 35 jir nimankii 35 waa qof weyn معناها consider ماركنا أنا كمعناها مركز كيران ولا ما دافنا صدق إيشان جرا anyway سمعنا دانها صح مركز قبلها أو دادير أو المها يرير كورينايو أو أنا full time كشقيو مستقبل كعرورتان دبعتها حتى هو إذا مركز depression كشو ننكي إيشان كفلانين أصلاً إسكت يرى إيش كذا عملية أو كتير ناكل كراعي relationship كاسو كلا سدو أركتا المهان يرير أو جور كانوا كل شيء وهو يلي حناقصن أما أبيها لو قلت وحنا كنكرت على بدر نعبه سدو أركتا فرتان كان أحمر قوس كان أي كوسن فلانين المنو كل شيء هرت قسان أنكوها يا إن شاء الله قسان كشيء يا رنتاس أنا عن إنده كواركي I'm ready إيش تامد واي وقتها لبض قف إسقبان وحلا فيريا فريتانكو وحويها ومصلحه مرمرك قاركود حل بالو لك صوتو أدب فاميلك وح يكونوا ليين نلش يكونوا ليين أما المهن يكونوا ليين وح وغير بدن إن لبضن قف كلا تجان أوكي أيا وغير بدن لبض قف دب كده المهي أمرونا لبض قف أمرونا يعني إن فقط وحلا يابا مشكلوين كواوين environment تجاس إنه أكنت المها يرارك إنه أكنت أنت أنا تنبضن أنا قرين let me tell you the story أوكي ayaan dabad waxa soo wacday maamo Soomaaliyeed maadaama aan juvenile justice-ka la doortan ku jiro waxay maqashay juvenile justice-ka waxyaalaha inaan ku jiro way soo wacday waxay ugu tiri eedoy gabar qaraabo iigu aadan oo gabar yar ah baa dhib haysta waxay reeday maxaa dhacay waxay tiri eedoy mid inkaar qaba baa iga gabar naga guursaday bay tiri habarta igu leh ana igu leedahay gabar buu naga guursaday gabadhii wuxuu ku sameeyay waxa isla gaareenba laba ilmo eryar oo midna 3 sano jiro midna 1 sano iyo bar jiro bay haysataa asaga u dhashay lama joogo tiri talaag buu iska saaran yahay ilmahaas uur ku qaaday oo iskaga dhashay habeen u yimid un ma ogi ma garanayno gabadhaas wuxuu tiri ma biisho wuxuu soo diraa asaga gabadha ma biilo waa qaba gabadhii ilmo u dhaloosa ma biilo gabadhii waxa soo dhan waa iska sheeko waxa ka daran mid Soomaaliyeed oo kaleeto dhiban oo iyadana sidaas oo kale ay daris yihiin bas afdhaafeen markay afdhaafeen waxay sameysay 911 ugu wacday kan kala wacayso tii dariski awacayso waxay tir naagtan way waalan tahay mindi bay ii haysataa sheekadii mindi baa gashay gabadhii booliskii ayadoo gurigeeda ku jiro oo ilmaheeda haysata baa booliskii ordaa u yimid booliskii markuu u yimid way fiirisay albaabkii boolis qofkan luqad ma taqaano wadanka wax badan ma joogto inta joogto waa inta ninka la joogtay ninkii lama joogo qof iska afgaaban waaye dad kala ma taqaano waxay ku dhagtay cunuga ilmihii xunka ma jaqaday halka ku dhagtay gabadhii oo askarta u timid beebigay ku dhagtay nimankii ku qaylisay marka booliski waxa ay garabtaan gurigay ka baxa waxay dhaheen we need inaan waa lagu soo dacweeyay ilmo yarna waa joogan violence halkan loogu sheegay guriga inaan baarno waay gurigii baareen tif ilaa cirb waa la baaray wax dhiba waa laga waayay maxay raadinayeen markaas u malaysaa mindidii laagtu sheegtay iyo wax xabada iyo wax violence ah maadaama ilmo meesha joogan ay raadinaysaa gabadhii marka waxay sameysay way naxday luqadii ugu jawaabtana ma taqaano ilmihiin in laga qaadanayo dareentay way ooyday way dagaalantay way girirtay ilmihii isku dhajisay ilmihii markay isku dhajisay nimankii way fiiriyeen waxay dhaheen qofkan sidaan unaga noola hadlayso qof violence waay waxa la sheegay waxba ka jira waxaa laga arkay actionkeeda ilmihiina waa ku dhagan tahay nimankiina way la dagaalaysaa waxay leedahay baxa af Soomaaliya ku leedahay baxa waxa dhacday gabadhii way jaabayeen baawurka dabadiisa ku riteen waa la xiray waa la waday ilmihiina waa laga watay ayadii waxay sameeyeen waxay jiqusiyeen meesha oo maskaxda dadka waalan baa la geliyay waxaa la yiri naagtan way waalan tahay sheekada xabad kuma daraaye dhibic ilaa ay dhamaad ana taagnaa waa la waday waa la xiray iyadoo